والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا بيرليد سود وهذا مركلي إيه مرلبات وحل لي يراهدو هدي وحياب بدنو سوق هاي من باكري أقون هرو ساي هرو إنكو شيء أو بيرليد ما أنا اللهين لكن wax badan baan bartay muddadii aan gadgadinayay beeraleyda maxaan soo ogaaday horta waan ogaaday geedku qof walbana uu ogyahay geedku inuu nool yahay ilaahay abuuray noolahaba ahaadee qaabku wax ugu baahan yahay ayaa muhiim ah geedkii wuxuu u baahan yahay nafaqo wuxuu u baahan yahay hawo wuxuu u baahan yahay qorrax hawl badan baa iga qabsatay geedaha qaarkood waliba ku ugu muhiimsanaa geed hoostii har ah baan ku beeray hawl baa iga qabsatay gadaal baan idinkaga soo sheegi doonaayo idinkugu faahfaahin doonaa balse waxay noo joogtay goob meeshii ahayd inaan geedihii aan ku koriyay pots yar geedihii markay soo koreen oo soo baxeen waxa la yiraahdaa shooting ay soo sameeyeen si Ingiriiska ku yiraahdaan geedihii madaxa la soo baxeen xoogaa soo yara koreen oo mid walba nafaqo gaar ah u helayo geedkii uu yeeshay awood uu ku soo nuugi karo ama ku soo jiidan karo cuntada uu u baahan yahay dhulka ka soo qaadan karo ayaanu geedihii ka saarnay bahalladii yaryar waxaan ku wareejinay dhulka laba qayb wataan idin sheegnay qayb banaanka ay qayb greenhouse-ka greenhouse-ka waxaan geliyay yaanyo aad u fara badan waxaan kaloo geliyay dhowr xabo oo melon ah oo bahalkan batiiqa la yiraahdo iyo watermelon-kii qarihiina dhinac kale aan geliyay qarihi marka hal qayb baan isugu geeyay oo aad waasic waxaan siri qaraha sensitive weey oo halkan xoogaa ku yarahay labadii kalena laba line baan u sameeyay line waxaan geliyay yaanyo line waxaan geliyay batiiq haddaba maxaa iga qabsaday horta line-kii banaanka ahaa dhowrkan xaaladood bay mareen dhulkan geliyay ka bacdi waxaan u sameeyay caagadaha wax lagu cabo oo inta badan biyaha laga cabo ayaan waxa la yiraahdo waxaan kula geliyay dhulkii la geliyay ka bacdi waxaan uga dhigay irrigation amal biyaha ugu shubaa biyihii baa si dhibca yar ah waxay ugu dhulka hoostiisa u qooyaan xididada area-diisa qorshe fiican buu ahaa waa hirgalay oo laba xaaladood bay mareen oo xaaladda koowaad sida haddaba idiin muuqata geedihii waxaa dhacday way soo yaro koreen qorrax fiican bay heleen kor bay u soo baxeen line labaad baa jiray oo asagana waxa la yiraahdo asaga laftirkiisa melon ah marka banaanka geedahan ku beerasaan idiin sheegay batiiq bay u badnaayeen line waxaa jiray aan ka quustay oo bixi waayay oo aan siri line-kan waa fashilma laakiin line-kaasi line-kii aan ku niyadda samaayo ku rajada weynaa asagaa dhaamay kii kala afka ciida daray waxaa malayn tusaale way noogu filan tahayoo wuxuu haddayba nool yihiin qof ha noqdo ama geed ha noqdee lagama quusto waxaa laga yaabaa inay gadaal ka soo hagaagaan kuwii horey ka fiicnaana gadaal ka xumaadaan labadaba waa dhici kartaa marka qaybtii gudaha ku jirtay yaanyadii qayb kale oo yaanya waxaan sameeyay ayagana caagadaan soo qaaday caagadihii baan ciid ku shubay waxaan ku shubay ciid kaliya maahane compostigii aan sameeyay oo cawskii aan diyaariyay oo waxa la yiraahdo habeeyay compostigii uu nafaqaysan yahay compostigaas carro nafaqaysan weeye compostiga aan u isticmaalay waa koriyay maxaa marka kuu faa'iideynaya maanta waxaan kuu faa'iideynayaa horta wax walba oo la beerayo cilmi iyo aqoon bay u baahan yihiin professionalism bay u baahan yihiin qaruhu waa geed u baahan inuu helo ciid furfuran ciid adag oo isku dhegan oo dhooqa ah ama dhooba ah qaraha ku bixidiisa way ku adkaataa wuu ku baxayaa laakiin wuu daahaya qaruhu wuxuu jecel yahay ciid furfuran xididadiisa si fudud ay waxa la yiraahdo intay ciidda hoos u raacaan ay waxa la yiraahdo ka soo qaadan karaan biyaha sidoo kale wuxuu u baahan yahay ciid aan biyaha u haynin biyo badan qaruhu biyo uu u baahan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay dhulkii in aad loo qooyo uma baahna laakiin wuxuu u baahan yahay in qoyaan kooban loo yeelo qoyaan kooban in wax la yiraahdo moist dhulku ahaado qoyaanka laga dareemayo laakiin hadda biyaha ka badisina wax la yiraahdo caleemihii baa dhadaya marka wuxuu u baahan yahay ciid biyaha sii deynaysa ciid biyaha haynaysa uma baahna asaga marka qoyaankii kale oo ka hooseeya ka soo jiidanaya wixii nafaqo u baahan yahay waxaan kala ogaaday research badan baan sameeyay wax badan baan akhriyay waxa loo yaqaano nitrogen badan inuu u baahan yahay qaruhu inuu yahay geed u baahan nitrogen aad u badan asagu ma diyaarsan karo nitrogen sida digirta oo kale digirtu
ayada ayaa dhulka nafaqeyso nitrogen ka siisa waayo legume plants baa la dhahaa familka ay digirtu ka tirsan tahay waxay sameeyaan inta badan hawaday waxay ka soo qaataan nitrogen waxay bedelaan ammonium ka bacdi bacteria waxa jirta gaar ah oo ku korta hareeraha xididada digirta bacteriaas kala bedelasho sameeyaan bacteriaas nitrogen dhulka process garaysa qoyaanna ka qaata geedkana waxay siisaa wax la yiraahdo wixii nafaqooyin u baahnaa marka geedkan la yiraahdo qaruhu wuxuu u baahan yahay ciid nitrogen ku filan leh oo nafaqaysan halka sida aan arkay waxa la yiraahdo yaanyadu waa iska baxaysaa qara hadda in aad ula macaamilay noqotay waxa la yiraahdo qolofta ukunta oo kale jajabiyo waxa la yiraahdo ciidda ugu daro waxa kale oo ay noqotay mooska oo kale inaan jarjaro oo ciidda u raaciyo hawl badan baa iga qabsatay waayo ma rabin inaan isticmaalo wax fertilizers oo dhan baan ka fogaanayay oo qorshahayga aan ahayn marka qaybta la socota insha Allah bal halkay geedihii ku biyo shubteen baan isla arki doonaa iyo shaqooyin badan oo aan ka qabtay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada khiyaarta dhamaantiin